ما تاريخ ما قرتي هرت الصومالي انت سنه جرتا والله والله بالأمدا waxaan baray sida la hadlo hadana 10daas waa 10 loo baahan yahay ma hadday bilowdeen koorsadan mayde mid yar hadda sheekeen inta ii soo qoray ay la gashay ma qoraaba ta horta ma waalan tahay brotherkii 12 book oo afar ay yihiin bestseller gaal oo dhan iga gataan aan qoray oo luqada badan lagu turkiyo English aan ku qoray horta hore buugayga ugu horeeyay anoo 12 jir aan qoray wow way aragal dhahay af Soomaali aan ku qoray haya kadib haddana waxaan bilaabay inaan Soomaali ku qoro okay kadib waxaan qoray habka nolosha iyo harka nolosha sa markaan wada soo noqo Mareykan soo deganay waxay yiraahdeen Ingiriis aan u bedelay Ingiriis marka ma labadaba ma lagu turjumaa buugtaada mise buugta hadda ay qortay waa English kaliya kuwa hadda aan qoray English ku wada qoran yihiin oo waxaan aragtay buugta bal sidii kara marka maadaama Soomaalida ilaa 12 jirka ay buugta ay akhrisanayna Mareykan markaa waa lagu bood ma yidi kuma boodin aniga afar qabiilistaan ahay oo maad kasto markaan qorayo ujeedada iyo dadka aan rabo inaan gaaro aan ku bees gareeyaa hadda habka nolosha iyo harka nolosha weliga Ingiriis ma ka dhigaayo waayo waa sir aan Soomaalida u qoray okay waa sir aan Soomaalida u qoray laakiin hadda midkaan dhalinyarada u sharaxay the conversation protocol sidee umada loola hadlaa aadamaha dhan aan ugu talagalay ma buuga qortay marka ha ma sha Allah oo waxaan wax sheekada waxay ku timid midaa wuxuu ugu yiri ustaado buugaan akhristo iyo tilmaam buuga ugu fiican sa marka waxay laba buuga ugu fiican noloshana akhrisaan qof kastana haddana u sheegaa xirtaadana u sheegaa sa laba buuga koowaad waa kan waa kii Ilaahay oo Quraanka ma sha Allah buuga labaadna waa buuga adii qorto buuga Albert Einstein qoray iyo buuga hebel kala qoray iyo buuga Cabsaaq Dhoore qoray waxa ku tari maayo dadku qoraan ma wada ahan laakiin qofka su'aasha ku weydiiyay waxa laga yaabaa qoraanimada inaad wax qortid waa talent mugta okay si Janice kana ku sheegay qoraalka inuu sirkaas u maleeyo uusan ahayn qof kasto bini aadan ay hadli karo waxba u qorooyaa صح wixii warqad ku qormaan in cajalad lagu duubay in afka laga dhaho qofkaas waxba u qorooyaa waagas hadduu marka uusan aqoonin tusaale ahaan laptopka inta la tago QWERTY oo wax ku boobsii karin hadduusan mobile ku qori karin raadi bateriyaali cajalada soo gato haduubo cutubka koowaad waa maxay guurku waa saas wax ay la tahay cod ahaan ha u duubo kadib app waxaa jiro transcribe ugu sameynaa wixii uu yiri oo far u bedelayo Soomaali hadduu qof ku hadlayna ab miyaa jiro Soomaaliga English kaaga dhigay saxda English saxda no grammar ka kala khaldamay de makaanada editing marka waa shaqadeena ana marka waxaan leeyahay publishing company weyn qofka hadduu fikirkiisa qalqaloocna taas oo diyaariye anaga proofreading ugu sameeyno oo edit gareeyno cover design sameeyno book ugu dhigayno micnaheedu marka waxa waa everyone at TikTok joogo book uu qori karaa waliba book oo rabo noloshiisa uu qori karaa very simple haddana AI baash miraysaaba AI baa nawaalay hadda AI miraysaaba si fududaatay niyo laakiin horta Soomaalida technology-ga cusub ee adduunyadu ka faa'iideysato Soomaalidu si khaldan uga faa'iideystaa AI-ga hadda example AI-ga hadda waa isku caynaa moogta waa gartay Cabdirasaaq qora baan rabaa inaan caayo AI baan ka soo sameynaya adduunkiina fiiri adduunkii waa opposite way ka faa'iideysanayaan sidii loogu talagalay uga faa'iideysanayaan oo saxda ahayd laakiin Soomaalida ay propaganda si khaldan bay wuxuu u isticmaalayaan ari eeg meel kale aan ka fiiriyaa ani waxaan ka fiiriyaa gaaladana waxay dhahaan kid in a candy store ilmaha yar markii dukaanka nacnaca la geeyo maanta oo dhan nanac u dafaa Soomaalida waa caruurta caalamka anaga ugu daayar wallahi bile adduunka yaraankiisa anaga waay golaade
والله بالله وهذا فيري نينك مصريغا إلا فرعون وشيغنا أننا سيد كما دافنو very young أنا ولقى ما مقشي داينستي الصومالي هذا هاي لبي بليون أو كهر دايناصور لا دغالمين ما أنا دم بسياد برازازة حسن شيخ أساس أنا دم very young نلاش عصف واحد تين ايج بانا teenage أنا brand new نلاش كنا وحبنا لك ما قريه ميا ما يهد ما بلهين بإين هذا فيري ما تين ايج كهذا فيري الدنيا هرمرتي وسترينكا تين ايج كشرعيه بدون عقبان با جira warro annaga marka maadaama aan dadka dunida ugu daayarnahay wali tiin ay jaanahay sharciyadana ma qabtaan miya bay sharciga oo soo socda taa sharciga hadda nigay waxaan rabaa horta inaan ku dhameeyo marka qoomiyadaha kale adduunka joogaan oo horta aanu jahlis waxaan helay 14 dalo caalamka kamid ah aan mid ku soo noolaaday nolol aan qol uga xirnaa maysan ahayn intaan dhex galaan la sheekaysanayay say u fakiraan maxay nolosha u arkaan qolo kasta waxay haysataa taariikh ay ama qalad galeen ama qalad laga galay صح waxay haystaan buugaag 2,000 sano 3,000 sano u qoran qoladeenan Soomaali yiraahdo kan ugu taariikhyahanka cadaanka inta wax go'aameysanay bisoo yaqaana oo madowga la gumaysanay ha intaas dambe oo 1942 1492 iyo wax ka dambeeyay bisay saadarteed marka waxay naga dhigtaa anaga caruurta caalamka oo hadda social media anaga ugu badan haya hadda fiiriya midaa wuxuu leeyahay adal empire to ku sheegayo waa wax after ciisa ah nabiyullah ciisa gidib waa wuxuu ku sheegayo annaga waxaan isdiinoynaa noox nabi nuux xilligiisi daday u qorantay annaga xagaan jirnay dee amaanaan jirinba marka taa darteed marka waxaan ku leeyahay caruurta caalamkaan nahay may horta Soomaalidu intee qarni bay jirtaa intee sano jirtaa Soomaalidu ma la xamili karo oo qofka bini aadamka intuu horkiisa ka arki karo uu gadaashiisa ka arki karaa maanta marka isku maday kara Soomaali inaan tuso masaari intay jirto taariikh baa qortay waxay ku qoran bisle waxa ku qoran ninka cad adeerkeen cadaanka wuxuu noo qoray adeerka waa taariikhda anaga noo qoran Soomaalidu exist meeqa sanay tahay oo jirtay dad jira qoomiyad jirta ay ahayd ma la baartaa waa la baari karaa waan la heli karaa laakiin ma naga gadmayso hore ma loo baaray ifaan horta ayaan Cabdishaaqo hore ma loo soo baaray xataa taariikhyahanna kale ama qorayaal kale oo qoray Soomaalida inta sana ay jirto ilaa qarnigee bay jirtay meel ku qortay ma jirtaa hadda waxaan ku leeyahay waxaan ku dhooyaa waxaan qarniga la leeyahay ee 2,000 sano marayo ka hor dad wax qorteenaa jiran annagana 2,000 sano dhexdeedaan waxaan u malaynaa taariikh dheer Bible-ka waxaa ku qoran sheeko la yiraahdo saddexdii sixroole ee bariga wuxuu ku sheekaynaa ciise markuu Bethlehem ku dhashay saddex yiraahdo kuwa wax iska dhigayaan taariikh yahano ibn Battuta oo ku leeyahay waa kun iyo wixii ka dambeeyo ciyaala wada dadka ma fahmay bala wada baash haya sidoo wixii iga soo galay daaqada la iska xiraayay marka Bible-ka waxa ku qoran sheeko la yiraahdo saddexdii sixroole ama saddexdii magician ama saddexdii boqor ee bariga ciise wuxuu ku dhashay leeyin Bethlehem kadib bariga adduunka iyo saddex sixroole ka kala yimaadeen mid wuxuu ka yimid Persia oo wuxuu ahaa Persian midna Carab uu ahaa midna East uu ka yimid oo Soomaali uu ahaa oo inuu Soomaaliya waxa lagu qoonsaday mid waliba hadiyado keenay kan Soomaali ka yimid wuxuu keenay baydo fooxo keenay fooxana ilaa hadda daafiirsa adduunka oo dhan Soomaaliya laga helaa
بايبل كيف قرنتها يا يا كلام بايبل كيف قرنتها ها ده تري ماجي بايبل كيف قرنتها ها marka nabiyullaahi ciise markuu dhalanayaa boqortooyo Soomaaliya ka jirtay waxay ugu soo deeqeen baydo waliba baydada saasa gabadhaas sheegayso boosaasa laga keenay soo 2000 ka hor inaan baydo iyo wax dirayni qof rabta mala mid kasta wuxuu ku leeyahay ibn batuuta markuu saas yeelay bariga ingiriiska yimid axmed gurey waa wax dhalo shalaya كل تاريخ هايسن marka saasan ka wadaa aasa Soomaali caruurta caalamka aan nahay maanta Donald Trump haduu live soo galo iyo qalmulla haduu soo galo qalmulla ka view badan sababta caruurtii oo dhan dadkaaga ah Trump laakiin waa dadka weyn James ma hayaan Trump ku fiiriyaan caruurta caalamka aan nahay marka caanuga oo dukaan dhinac la keenay marba kabar oo koraa soo maxaa hadana dhacday AI-gi aqoonti wixii oo dhan anaga hadda fiint maanta hadda Eritrea ya internet cafe la aadaa wali wifi la isticmaalaa wali hayo oo meel internet marka arto waa bixee internet cafe lacag dhiibanay waa fariisanayda wifi lagu soo deynaa inagase kuwa yaro abtigaan oo 3 jirada iPhone 17 Pro Max oo high speed internet ay haystaan wana ka dambeeyay marka Eritrea Ethiopia ka dambeeyay saxta Kenya ka dambeeyso habka horumarka iyo saa ugu dhaxboodna dukaanka nanaca cidna celi karta malaha marka Afrikaantan kale ayaguna caruurta ma kamid maaha may waa ka waaweyn oo ayagu waxay haystaan taariikh u qoran oo ka horeysa xataa ninka cad Ethiopia taariikh dheer bay leedahay horta laakiin hadda Kenya oo kale taariikh dheer male way leedahay laakiin Kenya ma dhahaysa markaas Bantu aa leedahay Bantu oo waa Bantu ka taariikh dheer leeyihiin from Angola okay you see ما يعني waxaan nation ka ah Kenya ama Uganda waxaas dalkaana wax cusub Ingiriiska iyo gaalada ay sameeyeen laakiin dad ahaantooda abajinis ma leeyahay dadka dunida ugu horeeyay oo laga soo farcamay bantugaasi u ekaayeen oo taariikhi waxay helayaan boqolaal oo Soomaali kan ugu dheer haddana ku soo bixooyo hadda taariikh Soomaali wax ka weydiiso madaxweyne farmaajo ka bilaabayaan iyo Xasan Sheekh siyaad barre baxtaa waa anaga waa weynkeena waa anaga waa adiga waa siyaad wax ka hadli karo laakiin kuwa aan waa siyaad barre kamaal ma soo gaarin dawladda siyaad barre may laakiin historiga aan haysan anaga dawladda siyaada wax weyn la ah xilwaanku fuusti iyo riixani adiga ka hadli karna kula waa joogle kama wado taariikh Soomaali marka hadda tawas I'm sorry gaarkii raal noqdo weynka no it's okay weynka no la baa noqon sida cawa diyo sheekan kale inaan ku weydiiyo inaad horta siyaasadda ku biirta yes sir argu dadka ku support gareeyay ku taageerayeen waa kamid ahaa diwaaniga adii ka soo bilaaban qofka la hadal WhatsApp ka soo wacay waxaan rabaa inaan ogaado qofka Soomaaliga ama ganacsadaha markii hore ama qoraasida adoo kale u diga rogonaya siyaasi inuu noqdo at same time anagu og community aan ka dhalanay Soomaalida qofkooda horumarka doonaya caqabadaha la kulmo adduunyada qofkii horumar doonaya dhabarka laga sii riixaa hore loo tuura Soomaalida laakiin lagu qabtaan caqabado nooceeya ba la kulantay day one sheegtay inaad siyaasadda rabtiin ku biirtay very good no waa barraba waxyaabo su'aalaas qof uu weydiiyo oo si aan la tartiib u sharaxo ujeedooyinkayga iyo warta hore 2014 yaa hore isku dayayga ugu horeeyay isku dayay صح wala deegaanaan raadiyay صح waan waayay واقرت 2015 ugu dambeysay iyaan magaaladaydan oo
waxaana la yidhaha west minneapolis aana la yidhahdaa galbeedka minneapolis xaafad hopkins la yidhaahdo iyaan meeyarkeeda doontay واجس